السلام عليكم daawadayaasha qiimaha leh halka aan naga daawanaysaan waa channelka Tawfiiq Films magacaygu waa Saacid Maxamed Diiriye waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aqoon ogaal oo toddobaadka hore su'aalo dhowr idinku weydiiyo oo maanta jawaabooda idin wado inkastoo ay jiraan dad badan oo isku dayay su'aalihii toddobaadka hore ay weydiiyay jawaabo inay ka dhibaan laakiin ma aha dhamaantood kuwa dhiibay jawaabaha ugu saxan su'aalihii la weydiiyay jawaabahooda inkastoo ay jiraan hal iyo laba soo dhaweeyay laakiin aan sheegin jawaabta ugu saxan shantii su'aalood aan idin weydiinay jawaabahooda oo kaamil ah caaw u diyaar garooba su'aasha koowaad oo ahayd sheeg magacii hore ee loo aqooni jiray caasimadda Muqdisho waa Sareeboon mar labaad hadda idinku celiyay sheeg magacii hore ee loo aqooni jiray caasimadda Muqdisho Sareeboon su'aasha labaad waxay ahayd sheeg caasimadda dunida ugu qadiimsan oo xitaa waataan qish idin siiyo oo in iraahday waxay ku taalaa wadamadan Carbeed waxay ku taalaa wadanka Syria oo ana caasimadda Dimashq waa wadanka Syria caasimadda Dimashq su'aasha saddexaad oo ahayd wadanka caalamka oo ugu xoolo dhaqashada badan waa wadanka Australia dad badan oo qish aan siiyay xitaa oo ku iraada Soomaaliya kuma jirto in adeega la soo taagnaa Soomaaliya ku soo qorisay dabcan waxa la isdhihi karaa wadannimada qaaday laakiin aqoon iyo wadannimo meel isla ma galaan wadanka adduunka ugu xoolo dhaqashada badan waa Australia su'aasha afraad waxay ahayd sheeg Cabdullaahi ibn Abbas goorma ayuu geeriyooday dad badan ayaa soo dhaweeyeen oo yiraahdeen 63 hijriyada markii ay dad 67 kaliya hijriyada ay saxeen laakiin ma saxin inta kale tirada wuxuu geeriyooday Cabdullaahi ibn Abbas hijriyada markii ay 73 waxa uu geeriyooday hijriyada markii ay 73 su'aasha shanaad oo aan isla dhalinyarada intooda ugu badan way sheegi doonaan maadaama intooda ugu badan sportska ay ku xiran yihiin waxay ahayd sheeg xiriirka kubadda cagta ee adduunka FIFA goorma la aasaasay sheeg xiriirka kubadda cagta ee adduunka FIFA goorma ayaa la aasaasay xiriirka kubadda cagta ee adduunka FIFA waxa la aasaasay 1904 inkastoo ay jiraan hal iyo laba soo dhaweeyeen oo yiraahdeen 1960 hore way dhaafeen jawaabta sax daawadayaal mar labaad ayaan idin dul mari doonaa jawaabaha oo saxan magacii hore Muqdisho loo aqooni jiray waa Sareeboon caasimadda dunida ugu qadiimsan waa Dimashq wadanka caalamka ugu xoolo dhaqashada badan Soomaaliya ma aha waa Australia Cabdullaahi ibn Abbas wuxuu geeriyooday hijriyada markii ay 73 xiriirka kubadda cagta ee adduunka FIFA waxa la aasaasay 1904 guud ahaan waxa halkaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka aqoon ogaal ama aqoon guud barnaamijku waxa in la socodsiinaa anigu Saacid Maxamed Diiriye dhanka kaamiradan waxa ka hagay Yuusuf Xasan Khaliif inta ku kulmi doona barnaamijkiisa xiga wassalamu alaykum warahmatullahi